hore waxaan soo qaadanay casharada English alphabet sidoo kale waxaan soo qaadanay possessive adjectives maantana waxaan qaadanaynaa qaybtii labaad ee subject pronounska subject pronouns hore waxaan soo qaadanay subjectiyada he she iyo they maantana waxaan qaadanaynaa subjectiyada hadii Ilaahay yiraahdo it iyo you iyo we way hay hadaba hadii aan bilowno waxaan leenahay subject pronouns are words waa erayo that take kuwaas oo dhaca ama qaata the place of the noun booska magaca as a subject of a sentence magacaas oo ah faacilka jumlada ama falsameeyaha jumlada subject pronouns waa toddoba eray toddobadan eray waa I iyo you iyo we way waa I you we she it we iyo they way marka waxaan leenahay I waa aniga I macnaheedu waa aniga you waa adiga qofka hortaagan ama adinka dad badan oo hortaagan she waa iyada he waa asaga waa isdaba mariyay it iyada oo xayawaan ah ama waxaan aqli lahaynin ama shay we anaga they iyaga waya tusaalooyinkan fiir marka this is my camel kani waa camelkayga ama waa geelayga waa neefkayga geela ah it's a big camel waa neef geel oo aad weyn it has delicious milk caana aad u macaan ayay leedahay it has waxay leedahay delicious milk caana aad u macaan ayay leedahay one more time aan ku celiyo this is my camel kani waa neefkayga geela ah it's a big camel waa neef geela oo aad weyn it has delicious milk caana aad macaan ay leedahay marka pronounka it wuxuu u taagan yahay marka it wuxuu u taagan yahay neefka xayawaanka ay u taagan yahay marka laba mar aan kugu soo celiyay laba tusaale gooni ayaan ku geliyay dabcan waa la socon kartaa inta imaw ninkan waxaan leenahay you are Anas adiga Ahmed you are Anas adiga Anas ayaa tahay okay you are a builder new fundi ayaa tahay you are a strong man nin xoog badan ayaa tahay you are a strong man nin xoogan oo awood jireed oo maasha Allah leh ayaa tahay okay good you are Anas adiga Anas ayaa tahay you are a builder waxa tahay nin fundi ah you are a strong man nin xoogan ayaa tahay strong waa xoog man waa rag waayahay Ahmed and I aniga iyo Ahmed and I aniga iyo Ahmed okay students waxaan nahay arday we are brothers sidoo kale walaalo ayaan nahay we are at home guriga ayaan joognaa Ahmed and I aniga iyo Ahmed students arday ayaan nahay we are brothers walaalo ayaan nahay we are at home xaafadda ayaan joognaa marka we iyo taagan tahay pronoun u tahay Ahmed and I labadaas eray ay u taagan tahay marka pronoun qaabka u shaqeeyaan waa dabcan ina fahmi karto arjaynaya way aan ku xasuusiyo wax yar video marka hore like saar saaxiibadaada u gudbi one more time aan ku celiyo waxaan iska tirtirayaa dhamaan waxyaabihii aan ku qorqoray okay good subject pronouns are words or area that take place that take kuwaas oo qaata the place of a noun goobt ama booski magacaas oo ah the subject of sentences faacilka jumlada okay subject pronouns waa I you he she it we iyo they ereyadaas ayaa ah subject pronouns I waa aniga you waa adiga ama adinka dad badan he waa asaga she waa iyada it waa iyada oo ama asaga shayga ka hadlay ku xiran tahay we waa anaga they waa iyaga this is my camel kan waa geelayga it's a big camel waa neef geel aad weyn okay it has delicious milk caana aad u macaan ayay leedahay you are Anas adiga Anas ayaa tahay you are builder fundi ayaa tahay okay you are a strong man nin xoog leh oo xoogan ayaa tahay okay Ahmed and I aniga iyo Ahmed students ardayaan nahay
We are brothers walaala ayaan nahay. We are at home xaafadda ayaan joognaa. We are at home xaafadda ayaan joognaa. intaas waa casharkeena maanta. saaxiibada gudbi video xaqiisa si okay